waxaa jiro oon rabaa inaan idiin sheego dadku waa la jaha wareerinaya waxyaabo badan baana loo sheegaya. meeshaan waxa weeye Soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo Soomaali waa heshiisay. nin walba damaci uu lahaa iyo wax nin walba uu rabay halkaas la iska dhigay. Soomaali waxay ku heshiisay 17 September. 17 September oo Soomaali ku heshiisay wax ku jirana cid ka bixin kartana male. wax aan ku jirina cid soo gelin karta male. ama ra'iisul wasaare ha noqdo ama mid kale ha noqdo ama maamul goboleed ha noqdo ama kale ha noqdo haday cid ku samrayso cid ku samartay annaga way intaad ogeydeen baa xaq annaga hadaan nahay reer Jubbaland iyo reer Gadabo waxaad ogeydeen dhibaanaysta annagana waa ku sabarnay waxaan iraadayba Soomaali heshiiskan qaata sidaas aan ku qaadanay heshiiska asaga annaga aan qaadanay nin wax ka bedeli kara ma ama miisas ha fujiyo ama bahalkiga sameeyo waxa way ujeedku raadinayana waxa way wuxuu rabaa wax aan Soomaali ku heshiin inuu soo geliyo rabaa meesha ama wuxuu rabaa inuu ka bixiyo wax Soomaali ku heshiis marka taa ma shaqeynayso wax shaqeynayana ma heshiiska 17 September cid wax ka bedeli karto inaba ha yaraatee ma ay jirto taas waa intaas inaad sidaas u ogaataan baa la rabaa cid sharciga ka weyna ma jirto cid sharciga handadi kartana ma jirto ama ninka qabiil ha sheegto ama wuxuu rabaa sheego Soomaali halkaas ku heshiis waxyaabaha idin muuqdo arkaysana waa wixii haddaan idin kala hadlay damaca qof walba uu rabay buu dacaya inuu soo geliyo heshiiskii Soomaali ku heshiis iyo rabaa inuu soo geliyo marka waana laga diidaya marka laga diidana waa ordaha wallahi maalmo ordaha caadigiisu noqonaya dadkiisu la qabsanaya meeshan heshiiskaas dawladda Soomaaliya wardiye ka beesha caalamka cid walba saas loo kontroolaya cid wax ka bedeli karto ma jirto Soomaali waa heshiisay deegaan doorashooyinkana sida loogu heshiiyo weeye Garbaharey waxaan rabaa inaan idiin sheego inay doorasho ka dhacayso waxaan kala rabaa inaan idiin sheego dadkii reer Garbaharey dhammaan waxay u diyaar garoobeen doorashada iyada ahayd ayagoo matalaya gobolka Gado waxay diyaariyeen goobihii dadka lagu dooran lahaa waxay go'aansadeen inay guryahooda baneeyaan oo ay dadka martida soo dhaweeyaan dadka halka imaanayo isugu imaanayo oo Garbaharey imaanayo waxay gaarayaan dad ilaa 5,000 oo ergaa way sidaasay markay dadkii shacabka ugu diyaar garoobeen goobihii doorashooyinka loo sameyn lahaa taasna markay inaad ogaataan weeye goob kasta oo loogu talagalay ama loo asteeyay inay doorashada ka dhacdana way ka dhacaysaa taasna hal la ogaado waxaan rabaa marka goobaha marka ay ka dhacayso hadda Jubbaland waxa uu hormaray Kismaayona waxa ka jira waad aragteen hadee waligeena waxaan sheegaynaa haddaan shacabka reer gadanay Kismaayo saaka ka socda maxaa jira baarlamaankii in dadkii laga xoogo dadkii aan waxba la weydiinin shacabka aan waxba loo sheegin dadkii wixii la raba la sameeyo saaka Kismaayo ka socota odayaashii cid wax weydiinaysa male dadka dhaqanka wax weydiinaya male gabdhihii wax weydiinaya male sida loogu talagalo kulli waa la baalmariyay wayna qaylinayaan dadka odayaasha waxaan rabaa marka shacabka reer Jubbaland maalin walba qaylo wax leedima taraysee wax noo tarahay inaan go'aan gaarno kaasa waxna tarahay gogoshanada Garbaharey way ka fidsanta reer Jubbaland soo imaada maalin walba Mas'uul Axmed wax u dhisayaan fiirsanayna ma fiirsanayna hal soo bax hal yimaado gogosha hal yimaado aan dhisana maamul annaga nimatalo oo Jubbaland ku kalsoon ilaa Axmed waqtigiisa waa dhamaaday marka inaan qof waqtigiisa dhamaado la iska ag taagnaado oo maalin walba sheeg waxa ma tarayso waxaan la hadlay waxa way ogaasyada iyo odayaasha iyo waxgaradka dhaqanka reer Jubbaland